waxaan shirkan jaraayid maanta oo bisha 5 August tahay aan u qabanayaa inaan ka xog warramo oo ummadda Soomaaliyeed meel joogto iyo cid kasta ay khusayso aan la wadaagno shalay wixii Boocama ka dhacay. Boocama safar waxaan shaqo ku tagnay aniga xildhibaan Cabdiraxmaan Doraad oo bishu ay 3 tahay shaqooyinkii caadiga ah deegaanka u tagi jiray baan runtii u joognaa deegaanka la qaybsan jiray. shalay subax waxaa duulaan ku yimi maamulka Somaliland oo uu horkacayo ninka sheegta inuu yahay gudoomiyaha gobolka Sool taliyayaal ciidan oo badan oo Nilaya Cali Barre oo taliya aaga uu ku jiro taliyaha qaybta booliska iyo dhammaan dadka ka shaqeeya gobolka Sool. runtii Boocama waa magaalo xasiloon, waa magaalo Puntland oo maamulka Puntland uu si dhamaystiran uga shaqeeyo, waa magaalo aysan wax raad ku lahayn Somaliland. Somaliland waynu isla ognahay deegaanada Sool iyo Sanaag qayb ka mid ah waxay ku joogeen xoog muddo wixii maaragtay deegaanadaas muddada ay ku sugnaayeen way isla ognahay lascaanood ugu caasimadii Sool ah maalin walba qof baa ku dhimanaya lagu dilayaan la garanay waxa uu maartay loo dilayo. runtii xilligan maanta lagu jiro imaatinka duulaankaas shalay subaxii markii waagu bariyay duulaankaas ay soo qaadeen waxay kala kulmeen runtii deegaanka diidmo iyo kacdoon iyo maaragtay soo galitaan waxay runtii Boocama gudaheeda may soo galin meel gees ah iskuul ku yaala hol kamid ah oo wali kii weynaa ahayn bay gogladeen oo gogla ay siteen iyo calama ay siteen iyo waxoodii ku habaysteen 12 baabuur oo shacaba la socday oo dadka inta badan meesha ka muuqday waxay ahaayeen dadkii iyaga la socday oo rag iyo dumar labadaba lahaa laakiin dad yar oo qofaf lagu tilmaami karo kooban baa magaalada uga tagay wax saacad ka yar ama saacada bay joogeen maaragtay halkaas magaalada Fardhiidin oo xilligan abaar ah cidina aysan joogin wax hadda joogaaba aysan jirin inay maaragtay u gudbaan oo ay maaragtay kadibna ay maaragtay kanarfood miigeeda meel magaalada dibadeeda ah ay maaragtay qolyo iyaga u shaqeeya oo ay halkaas maaragtay qado ugu sii sameeyeen. xilligan imaatinka ay Somaliland timi Boocama iyo deegaamadani 3 arrimood buu salka ku hayay. marka koowaad waa fitan iyo dabhurin iyo colaad hurin la rabo in la burburiyo nabadayntii beelaha walaalaha ah hadda gabagabada ah shaqadii ugu dambeysay ismada dhaqanka deegaamadana oo dhan ay bari gogashii kulankii ugu dambeeyay arrimaha lagu gabagabeynay ay leeyihiin sidii caadada u ahayd colaadii koonfurta Sool meelo badan oo dad eheli ku dagaalameen ay colaadooda u farafarayn jireen ama maartay inay sii socoto. colaadaas waxay xilligan lagu soo beegay abaartu jirto sicir barar ku jiro xilligan in maaragtay maamul Soomaaliyeed deegaana xasiloon ku duulo waxa aqalka saliimka keenayma laakiin ujeedada ugu weyn waxay tahay in nabadda lagu burburiyo gabagabada maraysa oo dadkaas eelka walaalaha iyadoo dan la moodayo colaad halka ka dhacda in qolyaha reer Boocama ay maaragtay tabasho darteeda ay maaragtay Somaliland waxaan qaltaagan talabaadna waxay ahayd xilligan maamulka Musabbixi oo la dagaal dhacaya xilligiisa oo dhamaaday iyo boob xukun kororsi oo maaragtay xisbiyadii ay tartanka doorashada kula jiray inuu boobo ama xisbiya furo oo xisbiyadii baabiyo oo tanshan culus uu ka jiro runtii aanan raali ka ahayn qalalaasaha dhul Soomaaliyeed magaalo Soomaaliyeed maamul Soomaaliyeed in dib gaadho inuu ku indhaha ku jeediyo dadkaas oo ku qariyo boobka uu xukunka boobayo. laakiin anaga arrinta ugu muhiimsan anaga qoysaysa waxay tahay nabadda beelaha walaalaha ay gabagabay maraysaa way xiran tahay wayna dhamaanaysaa meeshii ay maraysana maaragtay safarkaas mid wax turunturaa ku keeni doona maaha wax raad ay ku lahaayeen shalay galabtiina kanarfood waxay uga carraabeen meesha la yiraahdo Laascaanood wax raad dambe ka tageen ma jiro ilaa haddana insha Allah taala anaga ku sugan Boocama joogna maamulkii gobolka Sool
iyo gudoomiye gobolka jooga ku shaqeynaya oo maaragtay marti aanu nahay maamulkii degmada iyo qaybihiisa kala duwanaa Puntland baa shaqeynaya boocamana waa ammaan waana sii joogi doonaa insha Allah maalmaha soo socda si shaqooyinka maamulka iyo shaqooyinka amniga iyo waxyaabaha u baahan in si fiican loo sii dhaadhaado aan u hagaajino shirkaygan jaraad intaas aan maartay aad baan runtii waxaan rabaa inaan dawladda federaalka Soomaaliya wadamada dariska IGAD Arab League African Unionka iyo wadamada reer galbeedka intaba iyo UN-ka waxaan rabnaa inaan ogeysiino in duulaankaasi uu xasiloonida iyo darisnimada intaba mid khatar ku yahay oo runtii maaragtay lala socdo in dheer loola socdo daandaansigaas